maanta kulankan aad u xambaarsan in dalkeenu maanta meesha uu maray ka tarjumayo in laga shiro laga doodo caqabadaha iyo nataa'ijka laga gaarina meeshan lagu soo bandhigo shirkan kulankii saddexaad ee maayarada caasimadaha Soomaaliya in isku yimaadaan caasimada Muqdisho lagu qabto farxad gaar ah ay noo tahay annaga ka maamul ahaan waxaan leenahay horta marka soo dhawaada marka xigto waxaan rabaa inaan macliyo wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka ugu horeeyo iyo tiimamkiisa iyo anoo ku jiro wasaaradda arrimaha gudaha nafs ahaanteeda maxaa yeelay waxaan ahaa shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha muddo fog qiyaastii 10 sano booskayga fadhiyo yaxya fadhiyo marka calaba joogto oo ku faraxsanahay iyo bahda cusub ee wasaaradda gadaashii ku soo biirtay inta waa salaama farxad gaar ay tahay inaan shirkan maanta gobolka Banaadir in lagu qabto sida la socotiin maamulka gobolka Banaadir waa caasimada Soomaaliya sida ogtihiin maalmo waxa soo gaara qulqul fara badan ee barkacyaal Soomaaliyeed kana soo barkaca shabeelooyinka shabeelaha dhexe shabeelaha hoose abaaraha saameynta ku leh qiyaastii hadda inta la qiyaasay 300 oo kun oo qoys ayaa ka soo barkacay abaarihii ugu dambeeyay ee soo gaaray magaalada Muqdisho maanta ka dambeysana way sii kordhayaan ka jawaab ahaanta anaga aan sameynayna waxay tahay waxaan sameynaa dadkaas maamulada degmooyinka saameynta ku leh inta badan ay community-ga isku xiran yihiin maamulkana engagement xooggan ay ku sameeyaa haday noqon lahayd dadkaas sidii loo dejin lahaa dawjin lagu sameyn lahaa markii dawjinta loo sameeyna in maxaa la yiraahdaa waxbarashadii iyo adeegii caafimaadkii iyo adeegii nadaafadda dhammaan maamulka si wanaagsan ay ugu shaqeeyaan caasimada Soomaaliyana waxaan rabnaa inay ahaato mid adeeg buux u qabato bahda bini'aadanimada oo saameyn nugul ku leh guud ahaan dalkeena awoodaha dhaqaalaha ee maamulka gobolka Banaadir sida la socotiin gobolka Banaadir wuxuu ka qayb qaataa abaaraha dalka ka dhaco inta badan gacan weyn ayuu ka geystaa abaartii ka dhacday waqooyiga iyo dhammaan abaarihii ka dhacay Soomaaliya wuxuu ku kontribuugareeyaa qarashaad iyo adeegyada markaas loo baahan yahay wixii markaas uu ugu talgalay ka maamul ahaan anaga waxaan qayb ka nahay in maxaa la yiraahdaa sidii loogu bixi lahaa abaartan iyo maxaa la yiraahdaa dhibaatada faraha badan ee haysto magaalooyinka waxaan rabaa inaan u madaceliyo wasaaradda arrimaha gudaha aan ku faraxsanahay shaqadeeda ee hufan inta badan ay u dhisan yihiin tiirar badan haddii ahaan lahayd stabilizationkii haddii ahaan lahayd arrinta xalka waara dhammaantood inay si fiican ugu shaqeeyaan annaga ku bogaadinaynaa sida aad la socotiin maayarada meesha fadhiyo shaqada la shaqeeyo dowladnimada waxa ugu muhiimsan in laga shaqeeyo degmooyinka maxaa yeelay waxay u dhow yihiin bulshadana waxay saaxiib leeyihiin adeegyadooda haddii ahaan lahayd adeegyada guud ee dowlad dhiska iyo waxay u baahan yihiin inta badana in ay qabtaan midda magaalada Muqdisho sida la socotiin sanadkan waxaan daahfurnay ahmiyad gooni aan siinay qorshihii 2026-2030 waxaana ku jiray maxaa la yiraahdaa qaybo badan ay ka mid yihiin xasilintii amnigii bini'aadanimada adeegyada bulshada intaba qorshahaas ayaana tusinoo hagaayay wuxuu nooga hagaayay sida aan u jihayn lahayn iyo sida aan wax ugu qaban lahayn adeegyada arrimaha bulshada iyo maxaa la yiraahdaa bini'aadanimada intaba qorshahaas qaran ee aan u sameynay NTB-ga anagoo codsanayna 2026-2030 aan ku daafurnay magaalada Muqdisho mar walba wuxuu xoojin doonaa kana shaqeyn doonaa sidii loo horumarin lahaa dadyoga Soomaaliyeed dhinac walbana ay u gaari lahayd adeegyada dawladda iyo waxyaalaha asaasiga ah hortiminta u leh dawladda federaalka Soomaaliya tan kale maamulka gobolka Banaadir sida la socotiin waxaa guul weyn laga gaaray dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir in laga qabto doorashooyin hufan oo ku saleysan dadweynaha inay codkooda ay dhiibtaan caasimada magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday diiwaangelin oo annagoo maxaa la yiraahdaa diiwaangelintaasna guddiga doorashooyinka qaranka
وهو جاميني gobolada waxaa ka dhacay degmooyinka waxaa ka dhacay tartan adag ay ku tartamayeen golihii deegaanka golahaas deegaanka oo muujiyay in dowladdiska ay ka soo bilaato bottom to up loo gaaray top management si xooganna loo qayb qaatay iyadoo ay qayb qaateen ururada magaalada muqdisho degan waxaana ku tartamay qiyaastii dad aad u fara badan inta isdiiwaangelisan ay ka badnaayeen milyan inta codaysan ay ka badnaayeen ku dhawaad 1 milyan qofood oo codkooda dhiibtay waxaana soo baxay golihii deegaanka ugu horeeyay caasimadda ay lahaatay qiyaastii 390 xubnood oo maanta ayaha degmada ka talinayo hadday noqon lahayd amnigii iyo siyaasaddii hadday noqon lahayd adeegii waxbarashada dhaqaalaha caasimadda horumarinta degmadaas dadkii u istaagi lahaa oo golihii deegaanka ah golahaas deegaankaasna aan rabno insha allah waqti dhow inuu shaqo bilaabo maamul gobolka banaadir dhaarintiisa iyo maxaa la yidhaha seminaarkii loo furana qayb ayuu ka ahaa degmooyinkii ku guulaystay iyo dadweynihii ku guulaystay waxaan ku faraxsannahay waqti dhow maamulkana bedeli doono inuu ahaan doono maamul doorasho ku yimaado si loo gaaro dowladdiska e-governmentiga waa bulshada wax ka yimaada ayaa la yidhahdaa e-governmenti markii loo dhawaadana waxaa hirgeli doono dalkan inuu dimuqraadiyadda u toos ugu tilaabo waxaan ku faraxsannahay mar saddexaad iyo mar labaad inaan shirkan goobjoog ka ahaano asxaabtii daadihinaysana aan u madcelinaa dego iyo tiimkiisa waxaan rajayn doonaa insha allah wasaaradda arrimaha gudaha oo dhaxaad inay u tahay dowladda federaalka Soomaaliya maadaama dadka arrimaha gudaha dalkan ku nool ayaga ay xambaarsan yihiin inay guulo weyn ay gaarsiiyaan xagga dowladnimada iyo dowladdiska iyo local electionka waxaan ku faraxsanahay aan soo dhaweynaa dadka ku nool koonfur galbeed ayaga nafs ahaantooda in waaga cusub u barin doono hogaamiyaha cusub koonfur galbeed shacabka uu dooran doono dowladda Soomaaliya guul ay u tahay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh